tobankan dambe ee bisha mudnaan gooniye leedahay walaalayaal mudnaan khaas ah ay leedahay nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh asagoo bisha inteeda kale soo dadaali jiray ayaa haddana tobankani markay soo galaan wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale tobanku markay soo galaan nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu isku dari jiray inuu xaasaskiisa ka fogaado leanna i'tikaaf buu gali jiray nin i'tikaaf ku jirana reer iyo xaas iyo gogashoodu uma taalo habeenkiisana waa noolayn jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu ku noolayn jiray ilaahay taacadiisa quraan akhris salaad la tukado sadaqo iyo infaaq ilaahay dikrigiisa istighfaarta habeen nool buu ahaan jiray habeenka nebigu salawaatu rabbi wa salaamu calayh reerkiisana waa toosin jiray rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaasaska iyo ehelkiisana waa kicin jiray si ay jaaniska uga faa'iidaystaan lianna wax weeye waa wax aan la heli karin weeye waana fursad ay dhici karta inayna soo noqonin sidaas daraaddeed ehelkaaga waxaad naftaada la jeceshahay baad iyagana la jeceshahay taacada marka in la kordhiyo oo dadaalka la siyaadiyo waa hadyigii nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh taacada soo siyaadaysa waxaa ka mida bishan tobankeeda dambe i'tikaafka oo nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh tobankan dambe markay soo galaan waa i'tikaafi jiray i'tikaafka waxaa laga wadaa inuu ruuxu ka dhex baxo ka go'o wixii adduunka mashquulinayay ganacsigii suuqyadii dadka ku dhex jirkoodii la sheekaysigooda reerihii iyo muxuu ahaay gogashii wax kastoo mashquulinahayay inuu ka dhex baxo oo uu naftiisa masaajidka ku xabiso oo halkaa uu kula goonin noqdo ilaahay dikrigiisa tabaaraka wa tacaala iyo allah muraaqabayntiisa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala taacaadkiisa qalbigiisu inuu gooni u noqdo oo jirkiisa iyo qalbigiisuba ay u go'aan allah taacadiisa tabaaraka wa tacaala muxuu i'tikaafayaa tobanka dambe wuxuu raadinayaa laylatul qadri buu nabigu baadigoobahay salawaatu rabbi wa salaamu calayh nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxaa ka sugan inuu ina yidhi tobanka dambe ka raadiya tobanka dambe haddana habeennada tirada isdheer ka raadiya haddii xataa aad caajisto oo lagaa tambato toddobada dambe yaan lagaaga tambadanin buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxay ugu rajo badan tahay 21-ka ama 23-ka ama 25-ka ama 27-ka ama 29-ka waa habeenaday ugu rajo badan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiistiisa waxaa ku sugan habeenka 27 si khaasa axaadiis ugu soo aroortay 21-kana axaadiis khaas ugu soo aroortay baa jirta warka marka la isku celceliyo culimadu waxay leeyihiin waana ra'yiga xooga badane habeen khaasoo sanad walba ay tahay ma jirtee si axaadiista macnaheeda kulli ay sax u wada noqdaan oo loo kulmiyo sanadba meel bay gashaa oo sanad waxaa dhici karta inay 21-ka ku jirto sanadna 25-ka ku jirto sanadna 27-ka sanadna 23-ka waa fadiilo warwareegayso marba meel buu alla geliyaa tabaaraka wa tacaala adiga marka haddaad tobanka dambe oo dhan habeenadeeda kulli dadaalka isku bixiso shaki wuxuusan ku jirin meelay martayba inaad heshay inaad haleeshay ood heshay ayaa soo baxaysa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala marka tobanka oo dhan dadaalkaaga ha kala goynin oo siyaadada iyo khayrka iyo wanaagga badso si aanan habeennaba kuu dhaafin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala nabigeennu salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxyaalaha aad uu inoogu wax way inoogu jideeyey waxaa ka mid ah tobankan dambe khaasatan laylatul qadri habeenkaas la raadinaya baadidaa luntay baadidaa la wada raadinaya qaaliga ah jawharadaas aadka qaaliga u ah oo habeenkaa camalkaad la timaaddo kun bilood camal aad la timid uu ka khayr badan yahay habeenkaas waxyaalaha aadka loo baahan yahay in loo badsado waxaa ka mid ah
habeenada la filayo ducada ka mid nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xaaskiisa caaisha ayaa waxay ku tiri rasuulka ilaahayow laylatul qadri haddaan haleelo ama aan is idhaahdo waa caawa maxaan idhaahdaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waxaad ku ducaysataa allaahumma innaka cafuwun tuxibbu alcafwa facfu cannii allah waxaad tahay midka cafintiiyo saamixaadda badan ee addoommadiisa saamaxa ee rabbiyow iska kay cafi ilaahu dembigayga dhaafoo ee cafi hadalkaa badi buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna aslanba waxaad ogaanaysaan baryada iyo ducadu allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka kuwa ugu jecel yahay wey waxaa loo baahanyahay marka in qiyaamka iyo istaagga iyo qur-aan akhriska la siyaadiyo tobankan dambe sida nebigaba ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih habeenkaa ruuxii istaaga laylatulqadriga ah oo ilaahay taacadiisa isu taaga oo salaad iyo khayr habeenkaa ku dhammaystaayey dembigiisii hore waa la dhaafi buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka inaan khayraadka siyaadsanno wixii aan horay u haynayna inaan kordhinno intan soo kordhaysana inaynu ka faa'iidaysanno si ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa aynu u helno bishanna aynu jaaniskan ilaahayna siiye tabaaraka wa tacaala khayraad fara badan si kaydka aakhare aynoogu gasho biidni illaahi tabaaraka wa tacaala oo dembi dhaaf iyo wanaag iyo taaco iyo khayr iyo wax mustaqbalkaaga ku anfaca maalinta qiyaamada axibatii fillah